madaxweynihii xukunka xoogga looga qaaday ee dalka Masar Maxamed Mursi ayaa maanta geeriyooday kadib markii uu hortagay maxkamad ku taala magaalada caasimadda ee Qaahira. Telefishinka dowladda Al Ahram ayaa ilaa hadda waxa uu yahay telefishinka kaliya ee warinaya xogta geerida madaxweynihii hore ee dalkaasi Masar Maxamed Mursi oo isaga faahfaahin ka bixiyay qaabkii uu u dhintay. telefishinku waxa uu sheegay in Maxamed Mursi oo 67 sano jir ahaa uu miir beelay markii kulanka maxkamadda uu ka qayb galay, halkaas oo uu ku wajahay dacwada la xiriira jaajuusnimo sida ay sheegtay warbaahinta dowladda. markii uu maxkamadda hortagay madaxweyne Mursi waxaa la sheegay in fasax loo siiyay inuu xaakimka ula hadlo sida uu sheegay telefishinka Al Ahram. kadib markii lagu dhawaaqay in kulanka maxkamadda dib la isugu soo laabanayo ayaa madaxweyne Mursi uu miir daboolmay kadibna uu geeriyooday. waxa uu xaakimka la hadlayay muddo dhan 20 daqiiqo kadibna waxa uu noqday mid aan dhaqaaqin oo miir beelay, waxaana degdeg loola cararay cisbitaal halkaasi ku yaala, halkaas oo markii dambe uu ku dhintay. sidaasi waxaa laga soo xigtay xubno ka tirsan maxkamadda. dad badan ayaa weli shaki ka qaba habka Mursi uu u dhintay ee dowladda ay sheegayso, hase yeeshee wax walba waa ay kala cadaan doonaan. madaxweynaha dalka Turkiga Rajab Tayyip Erdogan ayaa bayaan ka soo saaray geerida Mursi, waxaana uu yiri: waxaan naxariista Allah aan u rajeynayaa shahiidkeena, waxaan u tacsiyeynayaa qoyskiisa, ehelkiisa iyo shacabka Masar. xaasidka Al-Sisi waxa uu qaarijiyay ugu yaraan 50 masaari ah ayaa lagu yiri bayaanka ka soo baxay xafiiska Erdogan. Mursi oo ahaa madaxweynihii ugu horeeyay ee si xor ah loogu doortay dalkaasi Masar ayaa talada la wareegay kadib kacdoonkii sanadkii 2011 ka dhacay dalkaasi ee xukunka looga tuuray madaxweynihii kale taliska ahaa ee ugu muddada dheeraa dalkaasina xukumayay Xusni Mubaarak. Mursi oo ku dhashay Ghiza al-Ayad ayaa ahaa aqoon-yahan iyo injineer ku soo caan baxay ururkii Islaamiga Ikhwaanul Muslimiin ka hor inta aan madaxweynaha loo dooran 2012. waxaana xukunka laga tuuray sanadkii 2013 kadib afgambi ay sameeyeen militariga uu hogaaminayay wasiirkiisii difaaca ahna madaxweynaha iminka talada haya Cabdulfataax Al-Sisi. Mursi ayaa xukunka haya kaliya 1 sano oo ka mid ah 4 sano ee la doortay. sidoo kale kooxdiisa Ikhwaanul Muslimiin ayaa kadib markii xukunka laga tuuray waxaa laga dhigay koox sharci darro ah oo aanan laga ogoleen dalkaasi Masar. bishii Maarch ee sanadkii 2017 ayaa siyaasiyiin iyo sidoo kale qareeno British waxay ka digeen in xaaladda xabsiga ee Mursi aad u liidatay isla markaana ay hogaamin kartay inuu degdeg u geeriyoodo. guddigan ayaa sheegay in Mursi aanu cisbitaalka uusan ka helin daryeel caafimaad oo ku filan, gaar ahaan cudurka sonkorta oo uu qabay, sidoo kalena xanuun kale oo dhanka beerka ah ayaa la sheegay inuu qabay. waxay sidoo kale ay sheegeen in xaaladda Mursi ee xabsiga dhexdiisa ay u dhigantay jirdil marka loo eego xeerarka caalamiga ah, waxaana ay sheegeen in madaxweyne Sisi uu galayo dambi bini'aadanimo ah marka loo eego xaaladii uu ku sugnaa Maxamed Mursi. warbixino kale oo dhowr ah oo ku saabsan geerida iyo taariikhda Mursi ayaan idiin soo gudbin doonaa insha Allah si ay